nahay bahwadaagta waxbarashada waxaan annaga mar walba u taagannahay barbaarinta iyo waxbaridda jiilalka soo koraya ee Soomaaliyeed taas oo u baahan maareen xakameyn dulqaad iyo dadaal. Gudoomiye waxaad ku soo aaday waqti xasaasi ah oo aad moodo in aad loogu baahan yahay garab istaaga howlaha waxbarashada degmada. Anagoo isku duuban waxaan ku leenahay ku soo dhawaad degmadaada annagana haddaan nahay maamulayaasha waxaan sidaan kor ku xusayba kugu soo dhaweynaynaa kaalgalana shaqeyn doonaa si daahfurnaan leh oo daacadnimo ay ku dheexan tahay. Waxaan kelimadan fursadan ugu faa'iideysanayaa inaan uga mahad celiyo gudoomiyihii hore ee degmada Afgooye ee qaybta waxbarashada Ustaad Sheegow oo runtii waqti xasaasi ah oo aad u adag soo shaqeeyay. Waxaan leenahay gudoomiye aad baad u mahadsan tahay dadaaladii aad soo bixisay annagana halkaas ayaan ka sii wadi doonaa insha Allah taala. Gudoomiyaha cusubna waxaan ka rajayn doonaa inuu ka dhaqaajiyo meeshii uu kaga tagay gudoomiye Sheegow annagana bahwadaagta waxbarashada isku duubanna waan barbar taagnaan doonaa waxaana u nahay garab iyo gaashaan goor kasta iyo goob kastaba. Xaqiiqatan waxbarashada marka laga hadlaayo macallimiinta iyo maamulka isku duuban waxay la dagaalayaan cadow oo aan la arkaynin, halka qofka kale oo askariga ah uu la dagaalayo cadow oo u jeedo. laakiin macallimiinta iyo maamulinta waxbarashada waxay la dagaalayaan cadow lagu magacaabo jaahil ama jahli oo aanan qof waligii arkin. inteeni hadda meesha joogta ma jiro qof arkay wax la yiraahdo jaahil oo si physical ah u taaban kara ama u arkay. sidaa daraadeed waxaana laga rabaa inaysan naga qaloocanin xabadda aan ku tuurayno jahliga oo aan si toos ah u toogan annagoonan u jeedin waliba. sidaa daraadeed waxay u baahan tahay iskaashi bulsho iyo awaawul dadweyne iyo wacyigelin isla socda. insha Allah taala gudoomiyaha waxaan ka rajayn doonaa inuu nagu soo biirin doono talooyin wax ku ool ah oo arrimaha ayaga ah oo hadda aan sheegay bidhaaminaya ama nagu hagi doono geedi socod wanaagsan oo u horseedi kara ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan jiilasha soo koraya mustaqbal wanaagsan oo ifaya hadduu Ilaahay yiraahdo. dhammaanteen oo isku duuban waxaan leenahay hambalyo iyo bogaadin mudan gudoomiye mas'uuliyadda lagu igmaday. waxaana rajayn doonaa inuu Ilaahay kugu simo guulo la taaban karo oo ay u aayaan jiilasha soo koraya ee Soomaaliyeed si loo waayo qof aan waxna qori karin waxna aqrin karin oo deegaanka ah. waxaan rajayn doonaa inaan soo saari doono jiilal wax ku ool ah oo waxbarashada u bartay ku qalabaysan cilmi iyo aqoon kaasoo wax u tari doona dadka dalka iyo diintaba insha Allah. kelmadeyda waxaan ku soo koobayaa mahadsanid gudoomiyihii hore mudane Sheegow iyo tiimkiisa. soo dhawow mudane gudoomiye waxaan nahay baxdaada waxbarashada waan kala shaqeyn doonaa howlaha hortabinta leh markastoo aad noo baahatana heegan buuxa baan u nahay inaan maqalno awaamiirta iyo hierarchy-ga iyo dhammaan nidaamaadkii waxbarashada. waad mahadsan tahay. Ilaahay ha kuga asturo mas'uuliyadda culus ee lagu saaray. aad baad u mahadsantiin.